saaxiibada biryaanka Chopra magaceedna waxaa la yiraahdaa Mahima Jijiri ayaa hadda waxaa la sheegayaa in uu ku soo booday cudurka la yiraahdo kansarka oo ku dhaco naasaha. Atariishadan ayaa waxa ay dishay filimiin waaweyn oo ay la dishay atoryaal waaweyn sida Ajay Devgan, Balwan iyo Akshay Kumar. waa atariishada ugu caansan ee dalka Hindiya. Rug-adaaga Bollywoodka Anup Kher oo ay Soomaalidu u yaqaanaan Awbaska ayaa ku dhawaaqay war ku saabsan xanuunka Mahima asigoo baraha bulshada soo dhigay muuqaal ay kula jirto atariishada caanka ah. Mahima ayaa muuqaalka gudihiisa ku tiri wax calaamada ah ma aanan qabin. sanad waliba waxaan tagi jiray dhakhtarka si aan baaritaanada joogtada ah u maro. xilligan waxaan helay talo ku saabsan in aan baaritaan isku sameeyo. isla markii aan maqlay taladaas waxaan u tagay dhakhtarka anigoo aysan cidna kale ila soconin. dhakhaatiirta ayaa tijaabooyin iga qaaday waxayna ogaadeen in aan qabo kansar nooca naasaha. waxyaabaha kale ay Mahima Jijiri ku tiri waxaa ka mid ah qof waliba waxa uu iigu dhahayay waa farxad in la ogaaday waqti hore. maxaad u ooyeysaa? balse waxaa xaqiiq ah in magaca kansarka qofkii maqlo uu ka argagaxayo. taas ayay ahayd sababta aanan arrintan ula wadaagin xataa waalidiintayda. 2 waxaan la noolahay waalidiintayda hooyaday. waxaan u sheegay in aan nabar ku leeyahay naaska, sidaas awgeedna aan u soo booqan waayay 10kii maalmood ee la soo dhaafay. isla markiiba waxaa sare u kacay dhiig karkeeda. waxaa khasab noqotay in aan isbitaalka loola cararo. maanta oo khamiis ah ayuu jilaaga Anup Kher shaaca ka qaaday in uu Mahima la ildaran tahay kansarka naasaha. taageerayaasha ku xiran boggiisa Instagram-ka ayuu la wadaagay muuqaal ay kula jirto atariishada.